25 sano jirkan inta ka badan 30 sanadood soo xukumayay wadanka Yemen ee Ali Abdallah Saalax ayaa dhimashadiisa la xaqiijiyay maanta oo Isniina waxayna warbaahinta iyo dadka ka faaloodo siyaasadda Yemen iyo mandaqadii bariga dhexe ay ka bixinayaan fikirro kala duwan iyo aragtiyo ah dabadiisa iyo wax laga dhaxli karo dhimashadiisa. Golaha guud ee xisbiga GBC waxa ay soo saareen oo ay xaqiijiyeen warbaahinta Yaasir Alwaadi oo kaaliyaha xogayaha guud ee GBC iyo madaxii hore nabadgelyada Hussein Alhamidi ayaa iyagana la xaqiijiyay dhimashadooda. Saalax ayaa 2 cisho ka hor ku dhawaaqay wada hadal uu la galayo xulafada isagoona ka baxay heshiis kula jiray xogaga Xuutiyiinta ee kula mideysnaa dagaalka Yemen. Xuutiyiinta ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhanaa garabka Saalax iyagoona qabsaday caasimadda Sanaa inteedii badneed oo uu ka mid ahaa saddexdiisii guri Saalax mid ka mid ah kaasoo uu kula wareegeen hanti badan kuna yaalay koonfurta magaalada Sanaa. Waxay ugu dambeyn xogagaasi heleen deegaan istiraatiiji ah oo lagu magacaabo Al-Misbaahi halkaas oo u jirtay qiyaastii 200 mitir hoyga uu kaga noolaa magaalada Sanaa. Taasina waxay sababtay socdaalka isaga iyo madax kale soo dadajisay geeridiisa. Xaakim Al-Misbaahi oo tafatiraha warsidaha Yemen Post ayaa yiri Saalax waxa laga yaabaa inuu ahaa qof ugu awood badan ee Yemen waxayna dhimashadiisu noqon doontaa mid holac ku sii qabata isla markaana sii kordhisan naxdin iyo cabsi. Lama oran karo waa dhamaadkii dhaqdhaqaaqa siyaasadeed laakiin waa dhaawac weyn oo lumin doona mafaatiixda halka loo mari lahaa. Isaga oo sii wata warbixintiisa Xaakim Al-Misbaahi waxa uu yiri tani waxay sii fogeyn doontaa natiijada waayo Saalax wuxuu ahaa astaan milyuumaad qof oo reer Yemen ah sidaas awgeed dhimashadiisa lagama dhaxli karo inay qaboojiso xiisadda waxayna sii adkeyn doontaa xal laga gaaro dagaalada iyo waawaanta nabadeed. tani ma keeni doonta ayuu yiri in Yemen dagaalku ka dhamaado kaliya waxa laga dhaxli karaa Xuutiyiinta oo midooba iyo dagaalka garabkaasi oo hal hogaamiye yeesha halka awal laba madax oo hal hogaamiye ah maamulayeen oo laba rabitaan iyo laba ajenda lahaa. Marwan Bishaara oo ah falanqeeyaha siyaasadda ee TV-ga Al Jazeera ayaa aragtideeda ku sheegtay in Saalax dhimashadiisu tahay wax muhiim ah oo taariikhda Yemen u siyaaday iyo xal u helista dagaalka ka socda waana suurtagal ayay tiri in Xuutiyiintu ogolaato sida Xisbullah ula midoobay dawladda Yemen oo kale. hogaamiyaha Youth Abdulmalik Al-Houthi ayaa shirkadu kaga hadlayay dilka Abdallah Saalax ku sheegay inaanu amarkaasi dilku ka soo bixin golaha sare ee Xuutiyiinta isagoo sharaxaya dilkiisa waxa uu yiri waxaan la sameeyay xiriir aan ku doonayo inaanu wadada ka bixin hase ahaatee dadka ku xiran ayaa arintaas iga diiday inay u gudbiyaan. Mukhtar Abdi Jaamac.